السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiin baa meel kastoo aad joogtaan mid ka mid ah qisooyinka ama sheekooyinka adduunyadan ka dhacay ee markaa xaqiiqda ah sida ay qorayaashu ay sheegayaan haddaba waa qiso kale oo cajiiba oo ku saabsan afduubkii la afduubay diyaaradii ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Yemen iyadoo ku sii jeeday waddanka Djibouti sanadkii 1973 arshiifka ama qaybta amniga waddanka Kuwait waxaa ka soo qoray sida ay sheekada u dhacday cajiibka ahayd suxufiga la yiraahdo Faysal Al-Hamrani Abu Dalal oo inta badan aanu soo qaadano sheekooyinka iyo qisooyinka uu ka qoro howlaha amniga maadaama uu yahay nin dhinaca ammaanka ku takhasusay oo la shaqeeya hay-adaha amniga waddanka Kuwait haddaba waxaynu guda galaynaa sheekadan uu qoray ninkan la yiraahdo Abu Dalal maalin maalmaha ka mid ah waddanka Yemen 1973 wuxuu u qaybsanaa labo Yemanta waqooyi iyo Yemanta koonfureed laba dowladood ee kala ahayd dowladda Yemanta waqooyi caasimadeedu waxay ahayd Sanca dowladda Yemanta koonfureedna caasimadeedu waxay ahayd Cadan kala go'aas waxaa ka dhacay dagaalo aad u culus oo qolada cadaniyiintu ay ku doonayeen inay waqooyiga kaga go'aan qolada waqooyiga ayaa tiro badan oo badan qolada marka cadan tahay dagaalada dhex maray dad badana marka ku dhin si kastoo ay tahay marka maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacay diyaaradda la yiraahdo shirkadda diyaaradaha Yemen Airways ayaa waxay ka soo dooshay waddanka Yemen waxay ku wajahneyd oo ay u socotay waddanka Djibouti sida caadada ah diyaaradda waxaa la socday rakaabkeedii caadiga ahaa rakaabku waxay isugu jireen dad Yemeniyiin ah iyo dad ajaanib ah dadka ajaanibta ah waxaa ku jiray dad badan oo Talyaani ah waxaa sidoo kale ku jiray safiirka Yemen xaaskiisa waa safiirka Talyaaniga Yemen u jooga xaaskiisa ayaa diyaaradda la socotay laakiin dadka lagama yaqaano qof caadi ay ahayd inkastoo wararka uu leeyahay ninka qoray warbixintan waxaa la socday laba qof oo dhar cad ah oo gabadha safiiradda safiirka xaaskiisa ah kor kala socday xaaladeeda oo ilaalinay diyaaraddii waxay gashay hawada waxay u socotaa Djibouti marka ay cabaar socotay diyaaradda waxaa istaagay nin la yiraahdo Abubakar Salim waa nin Yemeni ah wuxuu aaday musqusha xaggeeda musqushii ayuu galay wax yar kadib musqusha wuu ka soo baxay isagoo gacanta ku sita baastoolad kadibna wuxuu la aaday halka ay ku sugan yihiin kabtanka iyo caawiyihiisa diyaaradda laga kaxayo xilligaas hore easy ayay ahayd qofka rakaabka ah inuu ku heli karo ama uu ku geli karo qolka ay ku jiraan inkastoo markii dambe aad loo adkeeyay sida warbixinta uu ku leeyahay ninka qoray qisadan Abubakar Salim bistooladii ayuu qolka la galay kadibna wuxuu dhabanka ka saaray kabtankii diyaaradda kabtanka diyaaradda isma waalin ma iswareerinin waa nin kaloo Yemeni ah oo diyaaradda kaxaynaya wuxuu ku dhahay maxaa u baahan tahay wuxuu ku yiri diyaaradda meesha ay u socoto
waxaan rabaa inaad ka wareejisid. xaggee u wareejiyaa anaa kuu sheegi doona, laakiin waa inaad marka hore amarkayga qaadatid. hadalladaas yar markay isdhaafsadeen, musaacidkii ama caawiyihii ayaa soo booday. wuxuu isku dayay inuu baastooladda la qabsado ninkii afduubaha ahaa ee Abubakar Saalim. waa la iskula dhegay baastooladii, cadba dhinacaa la isku buurtay. kadib waxaa ka baxsaday bistooladda xabaddu waxay aaday meesha kore, saqafka kore ee diyaaradda, halkii ay fadhiyeen darawalka ama kabtanka diyaaradda iyo caawiyihiisa. meesha koraa duleeshantay. bistooladiina dhulkay ku dhacday. waa las dagaalay. ninkii caawiyaha ahaa wuxuu ku booday kursigiisa, kadibna wuxuu xirtay suunka, kadibna wuxuu soo daystay oxygenki. naftiisuu u baqay. sababtu maxay tahay? 1,000 feet ayay diyaaraddu hawada ku jirtay. haddii marka ay duleeshanto diyaaradda, oxygenkii iyo neefsashadii iyo wixii hawada soo gasha meesha ayaa dadka dhibaato u keenaysa. ninkan afduubaha, ninkan waxa uu ka fakarayo naftiisa inuu u baqaayo. kan maba baqaayoba, asaga wuu kusoo talagalay waxaan. bistooladii oo dhulka ka soo qaatay, kii iswaalwaalayuu fiiriyey inuu oxygeni wax isku xero arkay. kabtankiiu madaxa ka saaray. wuxuu dhahay diyaaradda waa inaad geysaa waddanka Kuwait. waa sida aan sheekada hadda, maadaama ninkan uu Kuwait yahay suxufiga ah, hay-adaha ammaankana ula shaqeeyo. marka faylashii amniga yaabka lahaa ee Kuwait ka dhacay ayuu wax ka qoray. sidaas waa marka sheekadu sida ku imaanayso. diyaaradda marka waxaa la yidhi waa inaad Kuwait geysid. war wuxuu dhahay aniga Kuwait ma aadi kari. diyaaradda waxay kusoo tala gashay Jabuuti iyo Yemenna way isku dhow yihiin. marka sidee wax u jiraan? shidaal xataa ma haysto. maya aday ku taallaa urtaas. diyaaradda ma wareejine mise waa kaa takhalusa. kabtankii marka waa baryootamay. ninkii saacadii u sharaxay wuxuu yidhi at least midaa samaynaynaa. Jabuuti aan ku degaynaa, shidaalaan qaadanaynaa, kadib meeshaa rabtaa aadaynaa. haddii ay isku dayaan Jabuuti iyo askar iyo inay diyaaradda soo fuulaan ka waran, itooguu dhahay idil. waana usii sheegayaa burjul muraaqaba. burjul muraaqaba waxaa la yidhahdaa baalka diyaaradaha haga ee Jabuuti. waxaan leeyahay waa afduubanahay, bastoolada madaxa laiga hayaa, waa soo deganayaa, shidaal ha laigu shubo, wax kale la iima samayn karo. tallaab kale haddaa qaadin waa dhimanaynaa annaga iyo diyaaradda. okay uu dhahay. waa la soo kaxeeyey. Jabuutidiyaa laga soo degay. 1,000 litir oo shidaala ayaa diyaaradda lagu shubay. waa la buuxiyey. Jabuutiyaankii waa yaaban yihiin. waa 1973 1973. ninka qoraaga ahaa faylkan nooga soo saaray bogga waddanka Kuwait waxyaabihii dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee soo maray dhinaca amniga. diyaaraddii hawaday soo gashay. duuliyihii wuxuu yidhi ma Kuwaitaa tegaynaa mise Sacuudiga? war adiga wuxuu dhaha Kuwaitaa ka dejinay diyaaraddan. sida loo soo socday diyaaraddii ay u soo socotay, dadkii waa saaran yihiin. wax dhaqaaqi kara ma leh. qof walba tiisuu u yaabay. diyaaradda kor waa ka duleeshaa. aad uma kici karto. xabadiyaa ku dhacday kor. oxygen la-aanaa dhacaysa hadday aada hawada u gasho. say u soo socota diyaaraddii Kuwaitaa la yimid.
kuwait marka diyaaraddu waxay la hadlaysaa burjul muraaqaba waxa waaye diyaaradaha soo socda iyo waxa kan iyo baalkan meesha loogu talagalay diyaaradda ayaa lala hadlaa. diyaaradda marka waxay leedahay annaga waa afduubannahay, afduubahana wuxuu nagu qasbay inaan kuwait ka degno, marka biliis ma soo degi karnaa inaan kuwait ku soo degnaa u baahannahay. waqtigaas marka burjul muraaqaba waxaa booqanaya oo meesha kormeer ku sameynayay oo isku soo beegmay wasiirul khaarijiyihii waddankaas kuwait, wasiirkii arrimaha dibadda ee kuwait sabaax al axmed as-sabaax. hadda dhow wuxuu noqday boqorka waddankaas, amiirka, waana dhintay, allah u naxariisto. waagaas laakiin nin dhalinyaro u ahaa, wasiirka wuxuu ahaa warfaafinta maxaarta wasiirka arrimaha dibadda u ahaa. sabaax al axmed as-sabaax al dhahay waa boqorkii hadda dhow geeriyooday waaye ee waddanka kuwait. waa la wargeliyey marka waxaa la dhahay wasiir, diyaarada hawada ku jirta oo yaman ay leedahay, duuliyihii wuu soo hadlayaa, wuxuu leeyahay ma soo degi karaa, waa afduubannahay, afduubaha nagu qasbaya inaan kuwait ka degno. sabaax al axmed as-sabaax waxa uu ka mid ahaa dadka aadka u caqliga badan wadamada carabta, gaar ahaan khaliijka. way la tashan jireen boqor faysal iyo boqor cabdallah iyo dadkii sacuudiga soo maray iyo wadamada khaliijka oo dhan nin aada u caqli badan oo ahaa. waxaad ku garanaysaa markii la go-doomiyey qatar dhowaan oo isugu tageen baxrayn iyo sacuudiga iyo waxa dhan iyo imaaraad iyo kuwait dhexdhexaaday ka ahayd. siyaasadaha marka uu ciyaaro ee uu ku hogaaminayo waddankaas, ninkaas waxaa la yidhahdaa alcaqlu alkhaliiji aldhaa, caqligii khaliijka aldhaa. sabaax burjul muraaqaba u fariistay marka ninkii shaqaalaha meesha wuxuu ka tag, anaa la hadlaaye ninka muxuu ahaa diyaaradda soo afduubtay, magacaaga ii sheeg wey. markaasuu yidhi aniga magaceyga waxaa lahahdaa abubakar saalim. haye maxaa ahayd? aniga yamaniya ahay. haye maxaa rabtaa? waxaan rabaa kuwait inaan kusoo degno. maxaa kuwait ku doorad? sacuudiga, qatar, waxaas dhanaan asoo dul martay, maxaa sababta a kuwait ku dooratay maxay? waxaan aaminsanoo dhahay shuruudaha aan wato inay kuwait ii fulin karto, kuwa kale laakiin ma ii fulin karaan. haye maxay tahay shuruudaha? shuruudihii marka inta lagu jiray qadkiyaa go-ay, inqidaac oo itisaal wax layidhaha a ku dhacay. diyaaraddii way soo wareegay, haddana jeero kale soo galay ilaa intii laga hagaajinayo. safiirkii itaaliya ee yaman fadhiyey, xaaskiisa diyaaradda saarneed iyo wafdi kale, xataa niman sirdoona oo talyaaniga iyo dowladda talyaaniga dad ka tirsan oo diyaaradda la socday, ayaa markii dambe dowladda talyaaniga warkii waxay la soo xiriir kuweyday la soo xiriirtay markii ay maqashay diyaaradda in lagu dejinayo kuweyt. sabaax al axmed as-sabaax waa wasiirul khaarijiyaha, waxaa soo wacay wasiirka arrimaha dibadda talyaaniga. wasiirka arrimaha dibadda talyaaniga wuxuu soo wacayaa sabaax oo fadhiya burjul muraaqaba, meesha diyaaradaha lagala hadlo. wuxuu leeyahay biliis wax kasta ha kugu qaadato, dad muhiima noo saaran diyaaradda, noo badbaadi. diyaaradda dad muhiima noo saaran, fadlan lama caamil ninka afduubaha ah ee diyaaradda noo badbaadi. way baryootamayaan talyaaniga. nasiib wanaag waxaa la helay itisaalkii, waxaa soo laabtay xiriirkiyaa soo laabtay.
afduubihii iyo waxaa wada hadlaa marka الصباح marka wuxuu yiri aniga waxaan ahay wasiirul khaarijiyaha Yemen Kuwait ayaan ahay ma ahi shaqaalaha burjul muraaqaba waxaan rabaa waxa aad igala ballanto inaan si sax ah kuugu fuliyo ii sheeg waxa lagu xisaabtamayaa u dhahay wasiirka arrimaha dibadda ee Kuwait ninkan waxyaabo waaweyn u sheegan doona siyaasadda waaweyn dowladda Yemen waxaas halayga siiyo ama kan hala sameeyo ama waxyaabo waaweyn maaragtay nin dhan oo diyaarad soo afduubtay oo de shuruudaha layla gala leh oo dowlad dhan ay shuruud inay la gasho rabta wax weyn laga filaa Soomaha waa arki doona marka waxa beesha ka dhici doona ninkii marka waxa la yiraahdaa shuruudaha ay sheeg maxay ninkii wuxuu yiri afar wiil ay la dhalatay haye afar taba waxay ku dhinteen oo yiri dagaalkii labada Yemen dhex maray tii gooni u goosadka ayadoo xornimada doonaysay inay tan kale ka go'do rabtay iyo tii kale dagaalkii dhex maray afartooda ku dhinteen haye afartooda mid laba qaba mid saddex naag qaba ilmaa laga tagay 37 cunug ka tageen haye 37 cunug oo aabayaasho dagaalkii ay ku dhinteen aniga 45 sano jira yiri Abu Bakar Salim alidaha haye adeera waa ilmaas haye wax lacaga ku beela maayo dhaan dowladda Yemen warqad kasta waa u qoray weydiid haye hadda marka waxaan Kuwait u soo codsaday inay ii kafaala qaado ilmahaas agoonta wax kala ma rabbi baarin niki صباح الأحمد وفيري نمكي كلا وحولها شروط هذا سفي على وقابلها انت اسميها وحكلا ما كوني من مي وحكلا ما يدن أنا كان إلا إن بدقل يا رباوي أنا كان مركا أنا كان الشروط وضناوي نكا أو وزير كارمات دي بدأ صباح الله عقل الخليجي الله مكتعي وأنن عقل بدن الله نحرست هذا وادنت بقر النقضي كويت هذا دولت بركة وحويري وحا كاربنا شروط دينا أي تحي أننا تدك ديارة سارا طاقم الطائرة شغالها الديارة يددك كلا كل جود أيجو بدقبة إلي نلك إمادان حربنا annagana taada ku fulinayna adigana taada noo fuli diyaaru dhaay aniga qofna wax ma ku sameeyay ilaa iyagu haday soo hujuumaan waa dilaawil wax ku soo hujuumay malaalahay diyaaradda waa la soo dejinaa adiga ayagoo nabad qaba ka rabnaa adigana shuruudaada waa ku fulinayna heshiiskii waa la heshii niki wuxuu dhahay marka saadi ku aamina tawqiic iyo wax la kala saxiixanay iyo ma jira aan diyaarada saaranay adikana dhulka joogtid war kaliya ma isku aamini karno dhahay waan see wax u kala saxiixanayna leeyahay adiga talakeen annaga inta hawada soo galno diyaaradda kuugu imaan wax ma ka saxiix karno adigina inta soo degtid dhulka imaatid wax naga ma saxiix kartid seelayeela marka ninka waxa la yiri nin xogaa البحر ما أهين بدويين ويمنيين تانو حوغا رباديها عملوا لكن إن وحلا كلا صحيح ذا السيستم يو أمسين لكن وحو يسليه هاي ورك ليه ومشاقين عيه سيدي وحلو كلا صحيحنا وحال السير بتاعي مركو هردولك إماو كدب عوح كلا صحيحنا ياو كلا صعود الله كليجي ويولان hadduu qof kula socdo qofka soo dejin lahayd asaa ku saxiix lahaa kadib heshiisku dhamaan lahaa hadda maxaa sameeynaa tawqiica marka aqli kaliya waa ninkan subaxa wuxuu yiri ninka wuu fahmay inuu xoogaa nin ilbaxa ahayn
ولكن كرتك لوتو وحكون هاي مركز ديارة دا مركز سودكتو وفيد مركز ديارة دا مركز سودكتو نل كده ها توقيعك وتصنع ما شاء الله معنا ورقة أنا ورقة ماشى توقيعها ماشى ساكو صحيحة هذا أجدد ديارة هرتي دا استاجينا نلقى الجوجو أدينا ماشى سو مسار درول كها ماشى سا أنكو صحيحة وأنا كو سلام يا هشيس كاساكو صحيحة أوكي وراي ديارة دي وسودكتي في دواء مركا نلقى ديارة هرتي دي مع الصباح وزير كاريمات دبد ورقد يلا تصنع ماشو كو صحيحة وحكو قرر حتى ما يقان كاس وسكا أبسيها لكن إن وحلا صحيح وحيا صحيح بس وحلا مركا هي ورقد واسع يعني موافق نعم والله أنا موافق هاي ضدك سودتي الله مرك dadkii yaa soo degdegay asaga weli wuxuu ku jiraa oo meesha oo ghurfatul qiyaada allah qolka oo diyaaradda laga wado ku jiraa dadkii oo fasaxay dadkii waa degeen wixii talyaani ahaa wixii yaman ahaa kulli meesha ka degeen niman marka amniga qaabilsana waxay rabeen inay diyaaradda koraan ma kori kartiin oo dhaay ninkan ani asaa heshiinay iska dhaafo dhaa asaa soo degaay ninkii waa soo degay asaga iyo duuliyihii musaacidkii way soo degeen bistoolada gacantu ku haystaa bistooladiisa uu wataa ninkaa nimankii marka oo askartii Kuwait ninkii waxay ku qabteen qoryo bistoolada dhigay dheheen bistoolada dhig markii la yidhi ninkan bistooladu waa ku dhegan yahay wasiirkii ayimid wuxuu dhahay dhagaysta qoryihiina ma ahana qaatuu dhaha qoryihiina ka takalaxda meesha bistooladaada soo qaaduu dhaha aniga adiga kafeeya cabeynaa soo baxa ninkii uu soo kaxeeyey maqaayad meeshaanu keenay kafeeya dalbadeen meel yaroo la fariisto asii wasiirka iyo laba nin kale bistooladaada iska haysuu dhahay waxaaga hayso أنا أدي وحنا دمينا اتفاقية هشيسكي دميسترينا أول وحوقها نلك كلية هذا مركا سر رسمي أدي أنا كيف قيبت هذا توقيع عيسى أو صحيح عيسى أنا قيبت إذا مارتي عن صحيح عيا وايه ورقديه دي بلوكيني نكي ماشي يسو صحيحي نكان ماشي يسو صحيحي ما أنت لقبل أو دولة الكويت waxay damaanad qaaday 37 qof oo dhahay aa sheegtay magacyadooda soo gudbi waxooda soo gudbi dhaqaale iyo wax walba safaaradda Kuwait ee Yemen aasiinaysa oo biilaysa meeshaas ay lacagtooda ka qaadanayaan sanadkii hal mar ma la siinaa bishii mar ma la siinaa waa hawl kale waay laakiin dawladda Kuwait way ku ballan qaaday ninkii bistooladii oo meesha dhigay سجود ولا دعيب وياوي صباح سجود ولا دعي إلهي أبيك هوشان يقبتي واكاس وكما سنتاي وزيركي هذا علي وحول وحكى المرب يعني الماس أوانت هذا مالك سارتين أنا عن يمن هذا كله بتويدي له يعني ماشان مالي رؤاس كانوا ولا هذا السيون أنا شقي سنة وزيركي وياوي وحي يسميه بس نكمل دقة على سياليني ماشي سوس كدقة هاوشي سيالو دمي دولة دي يمن مركو سوق علنا سامود وحلا كويت سودي بنك نك دبعتها لقى برا iyo sida ninka loo soo dhulka loo keenay warka maayso oo wacay ninka iska dhaafa adikee hawshiisa diyaaradii waa bad qabtaa dadkii saaraan waa bad qabaan ninkiina waa bad qabaa annaga heshiis la galnay
intuu diyaaraddaas dhibaato kale ku samayn lahaa hawshii waa dhammaatay. marka ninka sheekada qoray Faysal Al-Hamrani Abu Dalaal wuxuu leeyahay maalin maalmaha ka mid ah faylasha oo amniga waddanka Kuwait wixii soo maray anoo ku dhex jira ayaan sheekadan arkay. waxayna dhacday 1973 1973 ayay dhacday. waxayna ahayd sheekooyinkii soo maray dhinaca amniga waddanka Kuwait kuwii ugu yaabka badnaa. nin dhan oo diyaarad afduubtay oo biilka ilmihiisa haddana suu ugu faraxsan yahay sujuud tukanaya oo maartay sujuudaya markii wixii loo ogolaaday iyo sida caqliga leh ee wasiirkii dhintay Allah u naxariistay Subax Al-Ahmed As-Subax ee u macaamileen ayuu soo qaatay. annaguna qisadaas ayaanu toddobaadkan idin la wadaagnay oo ka mid ahayd qisooyinka ugu xiisaha badan ee uu qoray qoraagan caanka ah. qisadii intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. toddobaadka dambana haddii alla idmo qisooyin kale oo dhacdooyinkii yaab kalaha dunidan wixii ka dhacay ayaanu idinkula wadaagi doonaa. fadlan barnaamijka share garay oo like saar. haddaad ku cusub tahay youtube-kana subscribe saar. haddaad ku cusub tahay facebook-gana follow garay. inta aan mar kale barnaamijyadan mid lamida ku kulmayno haddii alla idmo meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.